waxaana walaalayaal ereyo kooban ka odhan doonaa munaasabadda tacliinta rasmiga ah iyo madaariska iyo iskuulladu ay furmayaan berito oo sabtiya tacliinta iyo aqoonta iyo in wax la barto waxna la baro aqoon la barto addoonka laga saaro jahliga waa xaq sharciya oo ilaahay siiyey wuxuu rabbi leeyahay wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum as-sam'a wal-absaara wal-af'ida ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa adduunyada markaynu ku soo biirnay ee aynu caalamka nimi inaynaan waxba haynin aqoon haynin garasho haynin qofku isagoo uu soo dhalanayo isagoo madhan laakiin muxuu ilaahay siiyey wuxuu siiyey qalabku wax ku baran la waa indhihii waa dhagihii waa qalbigii weelaynayey sidaa awgeed walaalayaal in aqoon la barto oo aqoonta la baro ubadka waa xaq sharciya oo ilaahay siiyey subxaana xaqaasi wuxuu ku socdaa waalidka dhalay ee adduunyada keen wuxuu ku socdaa qofka wasiiga ah ee lagaga tagay loo dardaarmo wuxuu ku socdaa qofka xigaalka ah markuu ilmihi agoomoobo yaaban loo dardaarmine ka xigaalka ee ugu xiga ayuu saaran yahay hadduu xigaal la waayo mid loo dardaarmayna waayo wuxuu saaran yahay dowladda xilligaa ummadda maamulaysa oo cid bay u sameeyaan la yidhaa qayim mas-uul baa loo sameeyaa ilmaha wiilka gabadha carruurta adaa ka mas-uulaa la odhanaya ciddaa ka mas-uulkaa buu ilaahay la hadlaya wuxuu rabbi leeyahay subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara dadka mu'miniinta ahow naftiinna iyo xigaalkiinna aa mas-uulka ka tihiin naarka ilaaliya waquuduha annaasu waalxijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa naarta noocaa ah ee dad iyo dab dhagaxaan lagu shidayo ee malaa'ig qallafsan oo ad adag hayaan qallafsan oo aan naxayn ad adagoon la jilicsanayn oon la jiiri karin waar naartaa ha laga baxsado maxaa lagaga baxsanayaa cilmiga sharciga ah ilaahay in la barto sifaadkiisa la barto wuxuu jecel yahay la bartoo lala yimaado wuxuu necab yahay la bartoo laga dheeraado in diinta ilaahay aqoon loo yeesho in ilaahay awliyadiisii iyo ambiyadiisii la barto kaasaa lagaga baxaya wuxuu nabigeennuna leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo sheegaya inaynu mas-uuliyiin nahay oo aynu gacanteenna wax ku hayno layna weydiin doono kullukum raacin wa mas'uulun can raciyatihi mid kastaa waa daljir waana la weydiin doonaa wuxuu daljiraha ka ahaa naftiisa ugu horraysa ciddii uu gacanta ku hayana waa la weydiinayaa nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uma yaraysan jirin dadka inuu ilaahay baro uma yaraysan jirin inuu jahliga ka saaro cilmiyada ugu qaalisan oo ah in ilaahay la barto oo alla lagu xidhmo oo adigii ilaahay xadhig idin xidhnaado ayuu baraay inan yar baa loo keeno madow oo addoona oo la doonaya in la xoreeyo imtixaan buu ka qaadayaa yaa jaariya ayna allah inan yari ilaahay mee satri fi samaa ilaahay waa korreeya samaawaadkuu ka korreeya carshigiisa ayuu ka korreeya man anna yaanahay saytiri anta rasuulullah suri ictiqha fa innahaa mu'mina waa mu'minad yar imtixaanka waa ku baxday way ku guulaysatay hal xoreey wiil yar buu ayuu baraya oo ilmaad yar yihiin ibnu cabbaas yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaat ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahak idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah wiil yar oo ay xaaskiisu dhashay oo isagu gacanta ku hayo ayaa la qadeeya suluugiisu hagaajinaya sule yaa ghulaam qul bismi illaah wa kul biyamiinik wa kul mimaa yaliik tacliim camaliyuu baraya bismi illaahi dheh midigtaadana ku cun ka cun koonahaagana ka cun xaggaaga xigta wuxuu barayaa wiiluu awow u yahay ayaa timir qaadanaya sule kakh tuf miyaanad ogayn inay sadaqadu xaaraan inaga tahay haddaynu nahay aalu muxamed
waa ilmo yare waxba laga qori maaye markuu weynaadaan wax bari doonaa waa khata weyn maantuu curdin yahay maantuu u baahan yahay in la toostoosiyo oo la tacliimiyo marka walaalayaal in ilmaha wax la baraa waa mabda' sharci oo qaaliya weyn wiil iyo gabadh labadaba xataa kuwa laxaadkoodu liito ee ama indhala ama dhegala meelo gaara waa in loo sameeyaa iyaga qudhooda waa in la baraa xataa ka waayay dhaqaalo uu wax ku barto mas-uuliyad baa mujtamaca ka saaran iyo dadka ilaahay wax u dhiibay inay u tawfiiriyaan wuxuu wax ku dhigan lahaa haddii laakiin la iska sii daayo inta la dhalo oo deetana uu dhaqaaqo ummadda dhinac ka raaco hadhowta khatar buu ku noqonaya kii dhalayna khatar buu ku noqonaya naftiisa halis buu ku yahay ummadduu la nool yahayna halis buu ku yahay inuu gaang noqdo inuu dib jir noqdo inuu dadlays noqdo inuu xumabiis noqdo inuu ummadda halligo waxaa soo martay taariikhda islaamka nin odayaa wuxuu u yimi cumar ibnu alkhadaab wuxuu uhi ilmahaygii baa caaqigu noqday oo cay iyo aflagaado iyo gacanqaad iyo wax walba waan ku qabaa suli waa balaayada soo kaxee markuu soo kaxay uhi war ma adiga aabbahaa caaq ku noqday waalid caasi markaasaa wuxuu ku yidhi aabbahay intaanan anigu caaq ku noqonin ayuu isagu caaqi ku noqday isagaa inkaaroy kadeeday intaanan anigu kadeedinba oo waa maxay miyaanu ilmuhu aabbaa xaq u lahayn buu yidhi suli wuu ku leeyahy oo muxuu yahay adigaa saxaabiye suli waa inuu hooyadii dooro oo hooyo wanaagsan uu guursado si ilmo wanaagsan u dhasho waa inuu magaca u wanaajiyo oo magac wanaagsan u xulo waa inuu ilaahay kitaabkiisa baro suli saddexdaa midna ma dhicin islaan majuusiyadoo dab caabudu ayuu guursaday oo iga dhaloon diinba lahayn dabka caabudda magaciina wuxuu ii bixiyey juclaan iyo xaarwalwaal buu ii bixiyey kitaab ilaahayna imuu barin xalla wuxuu ii baray uu sii daayey markaasuu cumar ku yidhi laqad cuqtahu qabla an yacuqaka intaanad adigu isagu inkaar kugu noqon adaaba inkaar ku noqday ee maxaad u reebta walaalayaal haba u badnaata miyadee ninku intuu rag iyo dumarba dhalo inuu sii daayo ama xoolaha u dirto ama uu yidhaahdo waa idinkaasee meherada ka shaqeeya ama waa idinkaasee ordoo baalashla noqda waxa weeyaan mushkilad bay ku noqonaysaa isagana waa ku soo laabanaysaa ummaddana waa ku soo laabanaysaa marka walaalayaal maadaamaaynu isla garannay ummadda in wax la baro gaar ahaan da'yarta iyo ubadka wax la baro waxbarashadii waxaad mooddaa gaar ahaan magaalooyinka waaweyn in loo dadaalayo waad ku farxaysaa subaxa hore markaad aragto hooyooyinka waddooyinka taagan ubadka labisan baabuurta lagu gurayo waxa isdhaafaya aad baad ugu farxaysa laakiin hadhowta markaad midhihii u timaaddo ee malaayiintii wax baranayay kumaankunkii wax baranayay midhahoodii mee waad waayaysa wixii carruur la kalihinayay maxaa laga dheefay aad ba u yaraanaysaa waxaynu u baahannahay inaynu dooda u qabanno war waxaanaynu baranaynaa horta waxaynu u baahnayn ma yahay oo adduunyadeenna uga baahannahay aakhirana uga baahanayo godka yaree madow wixii inagu anfacayay waxaynu baranaynaa ma yahay waynu su-aasha isweydiinno oo si saxa uga jawaabno manhajkan aynu dhiganaynaa ma waxaynu doorannayba soo wax laynoo dooro la yidhi saasaa wax loo dhigtaaye waxaasaa la dhigtaaye dhigta ma inagaa doorannay oo inaga soo gooday oo nolosheenna ku baysgaraynay dad islaama oo afrikaana oo soomaali la yidhaah oo raacata ah oo dhowaan miyii ka soo galay ma wixii ku munaasibka ahaaba se waa ummado kale wixii ku munaasib ahaa iyadana waa in laga doodaa qaabka loo dhiganayana waa in laga doodaa waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in loo qabto doodo aniga waxay ila muuqataa inaynaa saddexdaa midna ahayn tiina anfacaysay maaha tu ay inagu dooranayna maahe waa tu laynoo yeedhiyey qaabkaynu u dhiganaana qaabkii innagayna anfacaye maaha si awgeed waxaan odhan lahaa walaalayaal dhowr arrimood kow arrinka koowaad wuxuu yahay macrifatullah qabla macrifati hayrihi war arrimuhu waxay ka bilowdaan in ilaahay la barto intaan wax kale la baran 1+1 intaan la baran intaan la baranin maxaa la yidhaahdaa chemistry iyo biology intaan la baranin mathematics intaan la baranin waxyaalo kale intaan afhunguri
iyo luqad kala la baranin waa in ilaahay la bartaa waa in ruuxda la qadaysiiyaa intaan caqliga iyo jidhka la qadaysiin ruuxda maxaa lagu qadaysiiyaa ilaahay barashadii iyo tawxiidkii iyo iimaan baa la siiyaa sidaa awgeed baa saxaabadu waxay odhan jireen kunnaa natacallamu aliimaana qabla alqur'aan iimaanka iyo qur'aanka iimaankaa noo soo horrayn jiray uma natacallamu alqur'aan qur'aankaanu kadib baran jirnay idinkuna iimaanka waxaa barataan qur'aanka kadib baa iimaanka raadisaan taabiciintay ku odhan jireen markaa shaygii horrayn lahaa ayaynu dambaysiinay kii dambayn lahaa ayaynu horraysiinay bal adigu buuriga iyo dameerka kala horraysiin oo buurigu ha horreeyo wax ku dhaqaaqaan waxba ku dhaqaaqi maayaan noocaynu u socon lahnay waa nooca waxaynu u baahannahay in ubadka looga bilaabo in ilaahay la baro waxaa looga bilaabayaa a b c d xagguu tegi markaa halkii qaala allahu iyo qaala rasuul looga bilaabi lahaa xataa waalidka laftiisa subaxa hore maalinta iskuulku jiro waxaa la kicinayaa muunida maalinta jimcana laga yaabaa salaadba loo kicinin barqada dheer la soo kaco ilmihii muxuu fahmayaa inuu iskuulku muhiim yahay salaadu aanay muhiim ahayn maalintuu yar cawdu ilaa iskuulka waa yar xanuunsanaya baarasitimol baa la siinaya mid kale shandadaa loogu ridaya birrix baad hooyo odhana carar qur-aanka markuu galabta yidhaahdo wallah waa yar xanuunsanaya iska seexaana macallinkii la hadlaye oo kaa kale maxaa loola hadli waaye ilmihii waxaa la siinayaa message ah kani muhiim maahee kanaa muhiim ah waxaan u baahanay inay sidii arrintu u fiicnay aynu u kala qalloocino oo horraysiino kii horraysay kii dambeeyana aynu dambaysiino qodobka labaad wuxuu yahay cilmiga iyo camalka cilmiguna waa wasiilo waa jidkii la qaadayey camalkuna waa qaayadii halkii loo socday haddii cilmigii kaa mashquuliyo qaayadii mushkilad baa imanaysa war qaayadu waa in ilaahay la garto oo dariiqiisa lagu camal falo qaayadu waxa weeye qof muslima oo saalix inuu soo baxo laakiin maaha qof maroora oo maadiya oo 7 sano ama 6 sano ama 8 sano ayuu maadi dhiganayay kadib uu xasuusanayaa wallahi anigoo diinta ilaahay dhigtaa dhaamila ka ilaahay wax la doonay suu dib wax ka bilaabaya ama uu tawaawacaya midina kuba soo noqon maayo saasuu ku galbanaya waxa laga yaabaa intaasoo shahaadayn uu wato garanahayna waxyaalihii ilaahay ka doonayey ee ugu basiisanaa qodobka ii soo raaca wuxuu yahay walaalayaal saddexaad manhajka ummad islaami dhiganaysa waa inuu saddex ka turjumaya kow diinteedii waa inuu baraayo weliba yuu diintoo dhan barine rukunada waaweyn arkaanul iimaanka iyo arkaanul islaamka iyo cibaadaadka iyo akhlaaqda waa inuu baraayo kow markuu intaasaanu uga dhargiyo dhaqankeeda wanaagsan iyo taariikhdeedii wacnay iyo dalka iyo degaankana waa inuu baraayo oo ay u baahan yihiin noloshooda qodobka saddexaad uu barayana waa inuu yahay hadhow wuxuu ummadda ku soo dhex galo oo uu noloshiisa ku maareeyo taasi waxaan isleeyahay arrimahaasu aad bay inooga maqan yihin ama waa way yar yihin diinta waxaa laga yaabaa in yar laga dhigto dhaqankana hadalkiisa badaa ilmaha inoo soo baxaya baariis buu yaqaanaa muxuu yidhi ninkii gabayey adoon baariis ka sheekayn ama boon ka faalloon barashada dalkaaga muddo lagu busaylaa buud wuxuu arkay ummaddii oo meelo kale ka sheekaynaya dagaalkii koobaad ee adduunka iyo taariikhdiisiina aan garanayn noloshiisana aan garanayn dalkiisana meelo ka mid aan garanayn laakiin garanaya askarigii boolandiiska ahaa ee xabaddii koobaad riday dagaalkii koobaad ee adduunka iyo taymkuu riday ayuu xafisan yahay maxaa uga 15 wax uga 15 ma jiro marka manhajkeennuna waa inuu yahay manhaj saddexdaa ka turjumaya qodobka ii soo raaca wuxuu yahay ee afraad macallinka u dhigayaana waa inuu yahay macallin risaalad leh oo wax higsanaya oo doonaya ilmahan inuu anfaco noloshiisa adduunyana anfaco nolosha aakhirana anfaco waa inuu yahay macallin dhisan caqiida ahaan iyo cilmi ahaan iyo akhlaaq ahaan dhisan hadduu macallinkiiba eegayo tolo ma soo dhacay mushaharkii yaraa tolo ubadkan kan maabihi ma yar xoogga yahay dhaqaalihiisu aansaani ugu shaqeeye kanna waa iska dan yaro isaga in yar baan u xarxariiqi waayo kan galabtaan doonaya inaan wax u dhigo oo inaad dersi gaaraad u baahan tahay adigu si gaara lagu dhiso anigana si gaara lay dhiso jebadda lay buuxiyo hadduu noocaa yahay meel gaadhi maayo ilmuhu gacanta ku hayana meel gaadhi maayo way isla kadeedmayaan waa inuu yahay macallin
xambaarsan risaalad inuu qofkan qof ka dhigo ilmo yar baa loo keenay imaamu Ghazali wuxuu yidhaa alwaladu diinatun layina tantabicu biintibaacatik macallinow dhoobaa lagu keenay qoyan saa doontaad ka dhigi kartaa xaggan u leexi waa run ilmahaa yare aduu ku eegaya dhankaad u dhigtaa ayuunbuu u dhacaya qodobka ii soo raacay shanaad waxa weeye waxaynu u baahannahay ummaddu manhajkan isku raran ee awal laga bilaabo uulada ilaa foonfoorka wada socdaa inaynu dib ugu noqonno waayo dadkii intaasoo nooc weeye waa wiil iyo gabadh waa nin maskax badan iyo mid maan maskax badnayn mid muruqmaal loogu talagalay mid aqoonyaha loogu talagalay mid loogu talagalay kan dadkan isku wada rarani sax ma waxay muddo yaroo dhexe inay wax wada bartaan hadhowta kala leexdaan oo hablaha waxaynu u dhigna aynu garanayno wax iyaga hadhow anfacaya oo gurigooda anfacaya oo shaqadooda anfacaya waa in loo dhigo inanta fiisigiska loo dhigayo halkee bay hadhowta iyadu maayadaha iyo walxahan iyo waxaan xaggeen la tegaysaa kan kimistariga dhiganaya ee laga yaabo hadhowta inuu muruqmaalka noqonayo muxuu kimistariga uga baahan yahay ka biology-ga dhiganaya ee hadhowtana artiska gelaya waa un waqti lumis weey ummadaha wax isku falaya ee xisaabtamaya waxay sameeyaan ilmuhu markuu marxalad mucaayana soo gaadho dugsiga dhaxo kale inay ka wada leexdaan kii muruqmaalka noqonayay iskuullada farsamada oo intaasoo nooc waa inuu galaa dhaqso uga soo baxo mid waa inuu galaa qaybta xanaanada xoolaha oo deetana xoolaheen iyo ummadeenna wax u qabto mid kale waa inuu kalluumaysiga galo mid kale waa inuu macdanta galo mid kale waa inuu macadka beeraha galo mid waa inuu sii wato jaamacad oo loo diyaariyo inuu dhakhtar iyo noqdo doctor mid kale waa inuu injineer noqdo mid kale waa in caalim iyo sheekh macaahidda sharciga la geeyo oo caalim iyo khadiib iyo daaciya loo diyaariyo qofka waa in la baadho laakiin markuu 8 iyo 10 sano ka soo laaco ayuu seegayaa tolo maxaan ku fiicanay oo maxaad ku fiicantay waqtiga ka dhacay laga yaabo in halkan ay cadaato bidaaraysatay timihii soo caddaanayaan iminku isqiimeynaya tolo maxaan noqon la malaha siyaasi baan ku fiicanay soo tuuraya dhakhtarnimadii ama wuxuu soo dhigay halka ku tuuraya malaha waxaan ku fiicnaa inaan iska shaqeysto baacmishar noqdo oo ma mar hore baacmisharka iska noqoto waxaan isku rarani waxay u baahan yihiin inay dib ugu noqono waxa laga yaabaa 5 iyo 10 maado ama 4 iyo 10 maado dhiganaya oo mid ka khusayso mid ama 2 ama 3 ayaa ka khuseeya qodobka ii soo raaca wuxuu yahay walaalayaal ee lixaad noqonaya waxaan maalmihii dhawata laga hadlayay labiska ardayda qadiyada labiskan doonayaa in yar inaan ka idhaahdo labisku daruuri maaha oo arkaanta tacliinta ka mid maaha laakiin ardayda quruxdooda iyo sinaantoodu qayb ka yahay way qurux badnaanayaan waana sinaanayaan oo kii maalqabeenka ahaa iyo kii kale saboolka ahaa ayaa isku waxidhanayo la kala garan maayo inta looga jeeda waa inta arkaanta tacliinta ka mid maaha arkaanta tacliintu waa manhaj iyo mucallin iyo arday waa saddexda xataa iskuulku maaha iyo sabuurad iyo waxni maaha agab baa la yidhaha agabka tacliinta la yidhaha tacliintu waa saddexdaas waa manhajkii la dhiganayay iyo kii dhigayay iyo kii dhiganayay haddaba ummado dhan baaban labisba qaadanin oo nin walba la yidhaha waxaa doonta ku kaalay innagu haddaynu labis dooranay labiska waa in 3 sifo laga helaa midabku dooro ha noqdo midabkii la dooraabo innaga madaweyna caayayo meel inaga caayo ma jira fagaare waynu qaadan karnaa laakiin waa in 3 laga helo waa inuu asturayo qofka cawradiisii wiil iyo gabadhba si wacan u asturayo oo shuruudii xijaabka inanta waa inuu oofinayo ila labis waxa loo xidhaa inuu astur yahay oo ceebtaadii qarinayo kow waa talabaade caafimaadka qofka waa inaanu wax yeelay hadduu caafimaadka wax yeelayo isna khatar buu noqonayaa waa in laga maarmaa ka saddexaad waa inuu yahay shay available mawjuud la heli karo oo raqiis oo jaban oo aan cid ku adkayn saddexdaa marka la helo noocan doonaynu ka dhigan karnaa wax lagu wareero ma sida ogeed waxaan oran lahaa wasaaradda walow go'aan ba ay rideen xijaabka hablaha waa waxyaalaha la inagu majeerto ee ardaydeenu xijaaban iskuulada kala duwan ilaa jaamacaduhu waa fadiilo cajiib oo la yaab leh oo ilaahayna inoogu naxariisanayo arintaasi ha noqoto khad cas oo aan la taabanin wixii kala midabka go'aaminaysaan go'aamiya laakiin xijaabku waa inuu xijaab sharci yahay
qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay walaalayaal kaga baxaya macallimiinta iyo maamulayaasha waxaan leeyahay ubadka aynu hayno ilaahay wayna weydiinaya inaynu qalbigooda la hadalay oo aqligooda la hadalay oo dareenkooda la hadalay oo tilmaano toosino ilaahay waynaga wareysanaya ikhlaas iyo tafaaniba u baahanta qodobka labaad waalidku ku socda waalidow ilmahaaga intaanad maadiga ka dhisin diinta ilaahay ka dhis wax aakhira aad ku jawaabto waa inaad heshaa ilaahay baa ku weydiin doonee mathematics baan baray physics baan baray chemistry baan baray biology qudhiisa kuma xumayn ku anfici maysa qiyaamaha waxa ku anfacaya ilaahay ya aakhira waan baray rasuulkiisa iyo diintiisa wax baan ka baray inaad ku tabaxurto khasab ma oo ilmo kasta caalim noqdo laakiin waa inuu asaasiyaadkii hayo qodobka ii soo raaca waxa weeye ee ugu dambeeya waa qodob wasaaradda ku socda ummad islaameynu nahay ummadaha islaamkina waa inay diintooda ixtiraamaan oo ilaaliyaan oo ku dhaqmaan inamadan iyo hablahan isdhex fadhiya ee teenagerska ah ee muraahiqiinta ah ee dareenkii uu cusub yahay waa khatar weyn waa baansiin iyo kibriid meel lagu wada qaadayo ilaahay inta ka baqataan iskiilaydu kuma yara oo dhaqaalaydu kuma yara kala qaybiya ma ingiriiskii gaalka ahaba ka liidataan odayaasha ka sheekeeya maanaan ku soo gaadhine inay oran jireen iskuulkaasi waa girls kaasina waa boys inama iyo hablay u qaybin jiray iyagoo gaala ah maxaa inagayna dhex fadhiisiyay ma tawradii iyo siyaad bariyaynu diidanayn noociis baynu u dhaqmaynaa ee isdhex fadhiisin jiray waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ugu sheegayaa waar ilaahay subxaanahu wa tacaala kama ammaan helaysaan haddaa saa ku socotaan inamadii hablaha kala qaybiya haddaa wax kala garan weydaan laba gelin ka kala dhiga qaybiya haddaa iskuullada u qaybin kartaana ka wanaagsan waa soo tijaabinay tacliintu markaasay qiimo yeelataa inantu markaasay casharka u soo jeesataa wiilkuna markaasuu casharka u soo jeestaa annagayna soo martay wiil iyo gabdho wiilal iyo gabdho meel wada dhiganaya inantu maanta oo dhan is cusburaysaa is hagaajinaysaa is xamuuradeynaysaa waayo inama halkan fadhiya maanta oo dhan tawaleedkay ku soo daashay nooc kale iyadoo imanaysaa intay xiisada ku jirtana xaggana lagu maqan yahay wiilkana maba canaanan kartid ulna hadalkeeda daayo giirku iska kicinaya dee waxaa arkaya jinsigii kale inuu ku jiidhu ku burbursado waxba kuma aha waayo isagana lama dhowaan karaba sidaa awgeed markii la kala saaray inamadiina gaar bay u tartameen hablihiina gaar bay u tartameen aqoontoodii baa soo baxday inamadina si fiican baa loo tarbiyeyn karaa waad canaanan kartaa waad karbaashi kartaa waayo cid maanta uu iska dhisayo iska tiirinaya ma jirto waxaan leeyahay walaalayaal wasaaraddu ha ku noqoto arrinka go'aan wanaagsan oo degdegana ha ka gaadho ilaahayna ha ka baqdaan wuxuu waa ubadkeeni meel kale kama iman maroorka ay maroorsamaan qallooc ay qalloocsamaan innagay nagula soo noqonaya ilaahayna khayrka hayna waafajiyo dhammaanteen ubadka allah inoo ilaaliyo aqoontay baranayaan mid manaafacaada allah ka dhigo innagana ilaahay adduunka iyo aakhiradu ha inagu ilaaliyo dhibaatooyinka allah ina hareer mariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa yaqaana oo ilaahay ku xidhan allah inaga dhigo